بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال iyo marooy waxaan ugu horeyn salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee hore oo ah tababarihii nolosha siyaasadeed ee soo tababaray muddo 5 sanadood ah Ahmed Maxamuud Silaahi madaxweynihii ka horeeyay Daahir Riyaale Kaahin oo ahaa madaxweynihii bilaabay inuu doorashada bilaabo kuna magac iyo maamuus leh inuu xilka sii geliyo oo doorasho weeji waxaan mahadnaqayaa oo ka hambalyeynaya golihii wasiirada ee xukuumadda Ahmed Maxamuud Silaahi oo dalka 5 sanadood hawlo laxaad leh oo horumar ka qabtay suuqana geliyay inay doorashadu si nabad ah u dhacdo waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynayaashii ku-xigeenadii hore oo saaxiibaday ah oo ugu horeysiinayo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo aanu isku waqti iyo da ahayn maantana aan aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay madaxweyne hore Cabdiraxmaan Cali mujaahidkii weynaa oo isaguna hore dalkan ugu soo noqday madaxweyne ku-xigeen iyo Sheekh Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka waxa kaloon halkan ku soo dhaweynayaa aad ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida gudoomiyahooda oo oday mujaahid rugcadaa ah oo in badan dalkan soo shaqeeyay gudoomiyaha golaha wakiilada baashe oo in badan soo hogaaminaya golaha wakiilada waxa gaaro kaliya laabo soo dhaweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee iyo haneeyay ee laba goor oo hore dalkan intuu ku tartamay haneeyay Faysal Ali Hussein Faysal Ali Waraab waxa kaloon hambalyeynaya meel uu jooga baan soo dhaweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirfo oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisaba inta kadib waxaan aad soo dhaweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba waxaan ugu horeysiinayaa saaxiibadayda ama aan isugu dhawanahay afiya diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahdoon waxaan soo dhaweynayaa madaxda ka timid Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia dhamaantood oo si gaar ah u soo dhaweynayo dowladda deegaanka Soomaalida oo naafiya dhaqanbooda aanu isku madahay oo hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenku iyo dowladda federaalka Ethiopia guud ahaanba wasiirka gaadiidka Axmed Shide oo naga mahadnaqayna saaxiibtinimada dhaxaysa waxa kale oo aad soo dhaweynayaa dalka Kenya gabadha uu hogaaminayso waftiga xildhibaanada ah oo ku hambalyeeyo inay tahay gabadhii koobaad Safiya ee noqotay xildhibaan dalka Kenya Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta dalalkii Soomaaliyeed qaybtii Djibouti qaybtii Ethiopia qaybtii Kenya Somaliland waxay naga dhigan maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka Soomaaliland ictiraafsan ka soo qayb galaan aan filayana dhawaan ka soo qayb gali doonaan oo aan iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arintayadu suurtooday inay mid noqoto duruufii dhacay awgeed deetana nin waliba dawladdiisa iyo qarankiisa gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynaynaa ugu hambaliyaan wixii talaabo horumar aanu sameynay intaa ka bacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad baan u soo dhaweynayaa wufuudda inooga timid dalalka Yurub dowladaha EU-da ama Yurubta midowday oo ay hogaaminayso gudoomiyaha ambassadorka EU-da ee fadhiya Kenya oo saaxiib dhow la ah Somaliland iyadana waa soo dhaweynaynaa iyo ambassadorka la socdaba waan uga mahadnaqaynaa taageerada inoo galaan waxa kale oo si gaar ah u soo dhaweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan saddex jeer noo yimid balaha bil gudaheed
oo noo muujiyay inuu naga xigo kuwa kale sida uu noogu dadaalay iyo ballanqaadkii lacageeda maanta oo halkaa ka muujiyo ku taageeraya Somaliland si kaliya Allah baan ugu soo dhaweynaynaa waan uga mahadnaqaynaa dawladda UK deeqda ugu horeysay ee halka kaga dhawaaqeen dhammaan mudakarka Somaliland iyo madax dhaqameedka nooga yimid dawladda Ethiopia iyo Djibouti aad iyo aad baan soo dhaweynayaa si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa ugaaska guud ee beerweynta Ciise Mustafa oo maanta markii hore soo hambalyeeyay oo telefoonkaygala soo hadlay haddana martiqaadkii ku yimid waqtigiisii soo dhawo Mustafa garaadka beesha inta leeg adigoo qura Soomaali ka jira wax beerinta la garaado ah intii kala tafraaq waa ku dhacay Allah ku barakeeyo soo dhawo inta markaan dhaafo soo dhaweynta iyo mahadnaqa maanta anigoo bulshada iyo madasha bilana inta la hor taagan waxaan dareemayaa culayska iyo miisaanka ay leedahay xilka la idhaariyay ee Somaliland xilka la idhaariyay ee Somaliland culayska uu leeyahay waxaan xusuusanayaa wixii loo soo maray kuwii u dhintay naftooda u horay kuwii ku dhaawacmay kuwii maalkooda u horay kuwa ku agoobay iyo kuwa ku goblamay ee maanta nool iyo kuwa dhintay sharafta iyo maamuuska aynu maanta ku jirno inagu qadarinayaa waa dhiiggii dadkii Somaliland u soo huray taariikh ahaan marka laga soo bilaabo ilaa daraawiish ilaa SNM Somaliland waxay leedahay taariikh dheer oo mar walba go'aanimada ay u dagaalanto hadduu isticmaar yahay iyo hadduu cadow ku soo duulay yahay iyo hadduu maamul xun oo qabsadaba yahay taariikhdu waxayna furaysaa Somaliland inay leedahay taariikhdii ugu horeysay ee si miisaan la ula dagaalanta isticmaalkii caddaa ee Afrika soo duulay daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxay qaadanaysaa taariikhda koow cidda qura ee Afrika ee diyaaradda u duqeeyay waxa sii muuqda raadkeedii waxa ku xigay taariikhdii ahayd Sheekh Bashiir iyo culimadii ka dagaalantay gumaysiga ee jirkooda iyo naftooda u horay waxa ku soo xigay kuwii siyaasadda ku soo dagaal galay ee xisbiyadii SNL SNM NUF iyo USB iyo dadkii hogaaminayay oo maanta badalkooda inaga hooseeyaan waxa ku soo xigay SNM waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo dad badan oo taariikhda ama wixii jiray si qalad u fahamsan walaalayaal Somaliland ismay dilin SNMna Somaliland ma dagaalamayn taliskii macangaga ahaa ee naxariista darra ee Soomaaliya oo dhan afeeyay markii aan la wada dagaalamayn dhexdeena isaga khilaaf ka abuuray oo laga yaabaa inanka joogay Sool in laga dhaadhacsiiyay SNM gurigaaga iyo reerkaaga ay weeraraysaa dabeetana uu daafacayay wuxuu la mid ahaa kii SNM ee ka daafacayay Soomaaliya oo dhan dhibaatadii ku ahayay taliskii afweey inanka Boorama joogay ee la dagaalamayay SNM uu haysan nacayb uu qabay SNM iyo cadaawad ka dhaxaysay ee waxay ahayd balaaye iyo aafo uu ka dhaadhiciyay taliskii Siyaad Barre oo ahayd SNM waxay ku soo duulaysaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo caruurtaada dumarkaaga isaguna wuxuu ahaa nin la mida SNM oo daafacayay dad Somaliland isaga oo warkayna cadow ku yihiin shirkii Boorame waxaynu ku heshiinay oo lagu qoray ahdi qarameedkii in Somaliland iyadu aanay nacayb iyo colaad su dilin in lagu dhaxabuuray masiibada dhacday sidaa darteed kii ka dagaalamayay laascaanood iyo kii Boorama ka dagaalamayay iyo kii SNM inay intuba isku xuquuq iyo karaamo iyo sharaf yihiin oo ay maanta Soomaaliya daafacay oo kooda dhintay iyo kooda dhaawaca iyo kooda maanta jooga ay ku noqon doonaan ahdi qarameedka Somaliland mid siman oo ay wada leeyihiin oo aanu midna mid cadow iyo xumaan u ahayn oo taariikhdu wada leeyihiin halkaas laga soo bilaabay Somaliland halka hadii laga soo bilaabay intii ka dambeysay ogeyn intii aynu soo maray ee shirraha ee aynu dhamayn gurmadkii uu soo galay inay Somaliland midowdo ee uu Siyaad Barre ugu bareeray garaad Cabdilqani ee uu ku yimid balay gubadle ee uu halka ka soo ititibiyay waa kii nabadiisu ku dhamaatay Burco iyo Boorame waa tii lagu dhisay 97 dowladii laba markii lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal gurmadkii uu ka yimaaday sheekh halkan quraanka uu akhriyay Sheekh Cabdullaahi Cali Joor
أي وذا السعودان عبد الرحمن أو علي ومجاهد كي وينها يا سلامة وكوي الله وضع عيدا اسمه كان الدراء أنا وضع قاضي تقولي هل كان بقات كي قاضين يسقى يقول تلا سعودي يا شيخ موسى جواد الله هيد يا شيخ أبو بكر الله هيد يا أنت رضا الله هيد يا الدمات هذو سوق الماء حتى قردوفوين كي لحدينا واتين كسو قبل شركي بورمي ولا لا يهلك كي أنو سوق لي من دمادي إيوه تيسيا أنو كسو يقول سني واتما تشرف عالم كينو يمد عالم كونه بينو ما تنايو إن بقى يبتدي كسوقاتي وحنا بالقاضية إن أنا تاريخ ذا إذا كوه جامية وسيدا يقصوه جاميين عبد الرحمن محمد أحمد علي محمد حاج إبراهيم عقال ظاهر ريال كارين إيا أحمد سيلا يومان توقدن به وضادي سومالان قرن مدمد إيا ديسكي هذا أيان هين دونا وإن شاء الله وش سنة كبعدي إيا صاوديسان عدي لو دورتين دي بدورنا تاسواو سنة سومالان كدحية انت هو حنوقد بيه سومالان waxa ay soo martay dal soo dhisatay ay ka soo bilowday kulba tuule iyo shir waxa ay doorasho soo gashay ay tii maanta ugu dambeysay Soomaaliland kaligeed baa samaysay waxay naga caawin jireen wax yar mooyaane hay'adaha iyo deeq bixiyaasha qaran bixiyaashu xagga biyaha iyo caafimaadka iyo dawladiska iyo security-ga iyo tan u dambeysay doorashadan dhammaanteed boqolkiiba 80 waxa bixiyay Soomaaliland haday lacag tahay haday aqoon tahay haday soo qaadasho tahay haday ilaalin tahay waxaan mahad gaar ugu noqoyaa oo Ilaahay ka abaalmariyo ku amaano taariikhda ku mudan gudiga doorashooyinka qaranka waxa amaan ku mudan oo hirgeliyay oo xuduudo soo xiray oo ammaankeena ilaaliyay ciidamada qaranka kala duwan oo inuu abaal iyo galad ugu haynaa oo aynaan la'aantoona maanta halka fadhiyaan doorashadana aynu qaadeen oo aynu xusuusnaan doonaan qadarin doonaa hadii Ilaahay ilaahdo waxaan u sheegaynaa caalamku inaanu deyn nagu lahayn waa kuwa halka fadhiye inaan ciidan deyn nagsan oo aan banka adduunyada weynna caawinin oo banka Afrikana caawinin oo dawladaha Carabeedna caawinin oo kuwa muslimkana Carabina caawinin doorashadayadii hawlahayga Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed baa isku tashaday walaalaha Soomaaliya jooga xamra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo wadada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dawladda sheeye iyaga hawlahooda siyaasiga u qabaneen inta wax ka gudbaya araarta Soomaaliland iyadoo inta soo dhan soo qabatay iyadoo waxa soo guura gaadhay haddana waxaynu hor yaalla maanta dhibaatooyin u baahan inaan wada jir ku maarayno oo aanu xisbiga maareyn nina kaliya aanu ku maareyn waxa kamid ah cimilada isbedeshay ee abaaraha dalkeena ku noqdeen xoolo yaraadeen waxa kamid ah sicir bararka iyo lacagteena hoos u dhacday waxa kamid ah qabiilka oo aad moodo inuu qarankii la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kari laayihiin waxa kamid ah shaqo la'aanta hawlahaas oo dhan waxaanu ku maareyn karnaa midnimo waxaanu ku maareyn karnaa wada tashi haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka inagu xoog weyn oo kuwa dhaqaalaha oo ay ka mid tahay lacagteena hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqadana mustaqbalkeena ah waxaynu ku maareyn karnaa walaalayaal inaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeena wada dhaqana oo ka baxana qabiilka iyo deegaanka iyo tuulada waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatadeena dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyay iyaga oo caalamka in ictiraafsanayn oo aan deyn ka qaadan baananka oo aan la xiriirsanayn baananka sharciyad ay ersigu furaan lahayn iyo hablaha inoo sameeyay dhaqaalaha inta la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee hanteena isu dhigayno waxaanu qaadi karnaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteena kor ugu qaadno oo aynu dhaqaalaheena ku dhisno markaas caalamku waxaynu caamilaya inoo iman doona waayo ninkii isdhisa aynu wax la tara taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl waana qorshaha dawladda aanu dhisano haddii ay ku dhaqaaqayso waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyada oo sidii Sheekh Cabdullaahi halkan ka sheegay aynu muruqeen iyo dhulkeena aamino lama arag caalamka dad dhan oo wax beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbaqiyo ma cunno oo waxaanu doonaynaa cunto annagu aanaan beeran
oo laga yaabo caafimaadkeeda iyo tayada cuntada aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cuntada dalka taalla ee laynoo soo waaridaa dhallinyaradeena koraysa siday wakaadeen haddii aynu markaa dhulkeenna beeranno inu cuntadeedana la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay walaalayaal gaajada in badan baynu ka baxnayn iyo sicir bararka iyo shaqola'aanta dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 450 kun oo tan oo cuntaa oo ah midho waxaynu haysanaa ilaahayna siiye xoolo oo brotiinka maanta adduunka o dhan laga laayahay waxa ilaahayna siiye kalluun oo aynu armida la soo bixin haddana carruurteena maanta nafaqa darra ka muuqata ayayna waa tamar la'aan waxaan u baahannahay inaynu xoogga u jeedsano haddii gobol waliba 15 kilomitir oo kala beero bal gobolkana sanaaga intuu leeyahay bal inta biyo mirta eeg gobolka sanaag haddaynu 15 kilomitir oo kaliya beero walaalayaal oo aynu u jeedsano fadhay ka baxna ragga muruqale dalkeenu cunto ku filan u heli lahaa maanta waxay nagu ceeba inaynu ka soo iibsano dalalka jaarkeena tamaandhada wax kaleba iska daayo inagoo dalka intaa leeg iyo biyaha intaa leeg hela dabcan waa run biyuhu way yaraadeen laakiin waa inaynu helnaa hab casri ah oo xoolaheenna aynu hadda u dhaqno xoolihii guurayay ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimiladiisa darteed inuu helo dhulkii uu daaqi jiro wareegaysto xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuraa wax weyn ma aha waxaynu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoonu leh laakiin waa in laga dhagaystaa oo waddadooda raaca maalqabeenku waa inuu maalgeliyaa xoolaha nool oo ah waxa dalkeenna ku habboona ilaahayna siiyey iyo kalluumaysiga ku dheeraan maayo hawlaha inoo yaalla oo aan doonayo inaynu wadajir ku wada galno haddaynaan wadajir ku wada gelinna saas baynu baahnaanaynaa far quri fool ma dhaqdo dadkuna wax wadaqabad ku rooy waxaan u gudbayaa doorashada iyo xanafteedii waxaan diyaar u ahay oo tallaabooyinkeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa lii wixii xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiye lagu jiibsado oo walaalada iyada wax tirsanaya aanu qaboojinno iyagana waxaa laga rabaa walaalada wax tirsanaya inay gar qaataan inay gogasha soo fadhiistaan waxbaan kaa tirsanayaa kuwa soo fadhiisan maayo waxbaan kaa tirsanayaa gar qaadan maayo waa dhantiin madax dhaqameed iyo odayaaladeedu awnamayna qabataa diyaar baanu u nahay inaanu goob walba ugu tagno waa u tagnay xaruntoodaanu ugu tagnay waanu wada shirray madax dhaqameedkooda waanu heshiinay waxay igu amreen waan qaatay waana la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee guusha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan waxaanu ka sugaynaa walaalada iyaguna ay gar qaataan oo ay nabadda ku yimaadaan waxaan uga gudbayaa waxaan laga sugayaa dawlad cusub inaan soo dhisno dawladda waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo ka taajiro oo dantiis ku qabsan noqon mayso dawladdaanu soo wadno waxaan ballan idinku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dawladda ka mid ah hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahayba waxaanu idinma la qaadinaa inta qof bini aadmi kari karaa inaanu ku dadaalna sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dawladda la dhis doona iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarrayn karaan madaxweyne wasiir